السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان برنامجكي تدباتك إيه ترن وحا مرتي إنه برنامجك حلبان عبد الرزاق محمد سنويني عبد الرزاق سنويني oo xildhibaan ka soo shaqeeyo koonfurta Soomaaliya iyo waqooyiga xildhibaanka ayaa waxaan doonaynaa inaan wax ka weydiino maalin dhaxdaas dawladdu waxay soo bandhigtay tiribkoobkii ummadda Soomaaliyeed oo ku tilmaamtay 2 milyan iyo wax la jiro tiribkoobkaas waxa la leeyahay hawada ayaa saadaal loogu sameeyay qiyaas ah qaabka noocaas abal fikirka oo ka qabo Cabdi Rasaaq arinta maadaama aad tiin qurbo joogti Soomaaliyeed sidee bay kula muuqataa arinta ayada bismillaahir rahmaanir rahiim runtii arinta ay wasaaradda qorsheynta dawladda federaalka Soomaaliyeed iyo hay'adda UNFPA ay maalintii dhaweyta shaaciyeen arrin laga naxay waxay ahayd arrin runtii Soomaalida inteeda badan ama boqolkiiba 9 ku noqotay kadiso loona arkay bam khilaaf oo cusub oo ummadda dib loogu soo kordhiyay arrintaasi waxay ahayd arrin daatadaa sida loo sheegayo ama sida loo sameeyay sahan qiyaaseedka bulshada Soomaaliyeed ama hawada laga qiyaaso ama aalado technology heer sareeyaha lagu qiyaasay iyo sida dalka qiyaastiisu ee loo yaqaanay ee daatooyinkii hore iyo sensasyadii hore loo hayaa ay wax weyn u dhaxeeyaan runtii waxay ahayd wax dad ay ku iyo dadba badsanayaan mas'uuliyadda koowaad ee arrintaas hortaan waxaan saarayaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliyeed Xasan Sheekh wixii cadeynaan ka bixin karana inuu mas'uuliyadda leeyahay waan ka bixin doonaa waxaan kaloo saarayaa waan leeyahay mas'uuliyadda way ku weheliyaan inamada ay saaxiibka yihiin reer Hargeysa ay hay'adaha ka wada shaqeyn jireen iyo maamulka Somaliland marka waxaan leeyahay arrintaas ma aha arrin ummadda Soomaaliyeed u cuntantay ma aha arrin la qaadan karo ma aha arrin lagu qanci karo ma aha arrin isu soo dhaweyn iyo wax dadku isugu soo hilooba keeni karta waa arrin khilaaf iyo kala fogaansho iyo in dadka lagu kala dilo dib loo abuuray waxa yaalaha la yaab kale u baahan in runtii bini'aadamku uu ku qanco la sheego waxa kamid ah for example waxa la yiri gobolka waqooyi galbeed waa milyan iyo 200,000 togdheerna waa 800,000 wala milyan baa la yiri gobolka waqooyi galbeed wuxuu ka soo bilaabmaa magaalada la yiraahdo Kalabayd wuxuuna ku dhamaadaa meesha la yiraahdo inaaf madoobe ama meesha la yiraahdo labi gaatama oo gobolka Sool ay ku kala xadkoodu u yahay waxaan filayaa ilaa Kalabayd ilaa labi gaatama waxa weeyaan marka laga yimaado Kalabayd labi gaatama la yiraahdo waa 250 kilomitir 250 kilomitir waxa ku nool baa la 2 milyan oo qof gobolka Sool iyo Sanaag waxa la 1 milyan oo qof baa ku nool waxaan filayaa qiyaasta dhulka ama beedka ama dhererka dhulka marka ceelaayo laga yimaado marka from 10 kilomitir Boosaaso marka laga yimaado xadku yahay oo qawiya ceelaayo meel la yiraahdo dhexdooda uu xadku yahay marka halka laga soo bilaabo ee labi gaatama la yimaado oo ay gobolka Togdheer xuduudkoodu yahay halka la yimaado waa 850 kilomitir balcuna uu ka weynaanaya marka laga yimaado ama jiidali laga yimaado ama yubaha laga yimaado ama hal laga yimaado laasa surad ee ilaa dharkayngeeya la gaaro balcuna intaa in la eg buu noqonaya
debal haddii 850 kiiloomitir oo bini aadan degan yahayna la yidhi waxaa ku nool 1 milyan Kengeeyo aan intaa ku dhammeeyay magaalada u dhow Buuhoodla taabay dadku wada garanayaan Kengeeyo runtii waa magaalo xuduudda Soomaaliyeed ku taalo oo anigu waxaan adeer qiyaasayaa Saxdheer iyo way u dhaxaysaa Buuhoodle waxaan ka qiyaasayaa uun ballac ahaan dhulka dhinacan kalena dherer waxaan uga jeedaa 850 kiiloomitir bini aadan deganna waa 1 milyan baa la yidhi 250 kiiloomitir deganna waxaa la yidhi waa 2 milyan iyo 200 oo kun waxaad garanaysaa meesha in dadka reer Hargeysa ama nidaamka Hargeysa ka jiriya Xasan ay arintaa ka wada shaqeeyeen waxa kale oo waxyaalaha la yaabka ale kamida hadda runtii aan qabo in Xasanna aanay karaamo u lahayn ummadda Soomaaliyeedna lagu tusi karo waxa meesha ka dhacay ama sida wax loo rabo in loo sameeyo gobolka Shabeellada gobolka Bari iyo gobolka Nugaal iyo gobolka Bari iyo gobolka Nugaal iyo gobolka Mudug waxaa ku nool baa qiyaasta ku qoran saddexda gobol waa Mudug Nugaal iyo Bari 1 milyan iyo 800 oo qof ayaa ilaa Bari ilaa Mudug degan waa 1500 oo kiiloomitir square runtii de way noqonaysaa inta waxa weeye ilaa iyo Boosaaso ilaa iyo Gaalkacyo waa 800 iyo something dhinaca ballacaana waa inta in leeg marka square ahaan de wayba noqon waana la xisaabin karaa 850 ka ama 900 ee kiiloomitirna milyan iyo 800 oo qof baa ku nool baa la yiri oo qiyaastu ay tahay gobolka Shabeellada dhexe ee Jowhar ilaa Muqdisho Jowhar ilaa Muqdisho qofka soo Soomaaliya uu yaqaan waa 90 kiiloomitir 90 kiiloomitir ka waxaa ku nool baa la yiri xamarna milyan iyo 600 iyo something close to the milyan iyo 700 Jowharna waxaa ku nool 500 iyo dheeraad labada marka la isu geeyo 2 milyan iyo 100 iyo 50 baa ku nool baa la yiri wal yaani aqliga caadigu waxa uu diidayo 900 oo kiiloomitir oo saddex gobol ah oo Bari iyo Nugaal iyo Mudugana waxaa ku nool milyan iyo 800 9 kiiloomitirna waxaa ku nool 2 milyan iyo 150 taasi xaq ma waxaa markaa la siiyaab leh Bari Boosaaso waa magaalo weyn magaalo aan qabayn aan xamar ka dad yarayn Garowe magaalo weyn magaalo population badan Gaalkacyo waa more population iyo Qardho sidoo kale Qardho yani gobolka deegaamada leh numberkiisa iyo tiradiisa intaasay noqotay kan 90 kiiloomitir ka ana 2 milyan iyo 150 bay noqotay marka waxaad garanaysaa waxani inay tahay dad badsi inay tahay waxyaalo siyaabo kale lagu mado dhinaca kale markaynu ka eegno gobolka Bari ilaa Mudug waxaa dega ummad Soomaaliyeed oo kala duwan oo reer walba leh waana degaamo miyi iyo magaalo iyo xeeb iyo intaba iyo reer guuraale dad badan oo population badan oo Soomaaliyeedna lagu yaqaan Jowhar ilaa xamar reer baa dega reerka dega ee Xasan Sheikh jifa ahaan ka soo jeeda qiyaasta Xasan Sheikh wato ayaa waxay noqonaysaa oo aad reelaas garaynaysaa marka uu milyan iyo 600 xamar ka dhigay Xasan Sheikh jifadiisa hoose Soomaalida kale oo dhan marka la isku daro ee xitaa jifada wixii aan hawiye ahayn Soomaalida lagu daro waxaynu ognahay marka cirka loo badiyo wayna iman doontaa cirka loo boodiyo in aanay 20% ka badan gobolka Banaadir ka ogolayn ismiyar maadaama aanay intaa ka ogolayn waxa markaa milyan iyo 600 markay tahay iyo something ee ay 20% ummadda kale hadhow uga ogolaadaan ay 80% iyagu sheeganayaan ama ay leeyihiin waanu leenahay
gobolka banaadir beesha xasan sheekh milyan iyo 300 bay ka noqonaysaa gobolka banaadir milyan iyo 300 plus 600 oo jawhar oo shabeellada dhexe oo yana laga yaabo 20% ama 10% inay shiidle uga ogolaato halkaana waxay ku yeelanaysaa 500 oo milyan iyo 300 iyo 500 oo kun waa milyan iyo 800 oo kun okay marka oo shabeellada hoose oo afgooye wixii ka sokeeya xasan sheekh beeshiisu ay sheeganayso 30 kilomitir u dhaxeeya xamar iyo afgooye ilaa ceelasha biyaha ilaa afgooye oo markana laga dhigay milyan iyo 200 oo la badiyay numberka halkaana 200 buuba ka rabaa ugu yaraan milyan iyo 800 iyo 200 marka la isu geeyo waa 2 milyan waxaa kaloo beesha xasan sheekh uu rabaa beeshiisu inay wax ka soo hesho galguduud waan garnaa oo weeraan 100 xaaji waan garnaa waxa u aragnaa cadaalad xumo u aragnaa marka waxaan uga jeedaa beesha xasan sheekh oo kaliya ayaa 2 milyan iyo 300 qiimaynta dhabta marka loogu noqdo waraaqihii dib loo eego qof kasto Soomaali uu dib u eego ayaa 2 milyan iyo 300 noqon karta marka miyaa beesha abgaal inay 2 milyan iyo 300 noqoto ilaa mudug ilaa bari ummadda Soomaaliyeed ee degan nooc walbina leh ay noqdaan milyan iyo 800 ama kuwa Sanaag iyo Sool degan ay milyan noqdaan xagee waxaas ay ka shaqeeyaan cadaalad xumadii ay dawladii hore rejiimka siyaad bari ay u burbureen sida ummad badan ay ka tabanayaan walina waxa lagu jiraa in cadaalad xumada waxaana ka soo wareegtay muddo hadda 24 sano waxa la dareemsan yahay in qaabka aad u hadlaysid in maamulka damjiriid ee maamulka Siinay ay ku heshiiyeen in maadaama 4.5 kii soo gabagaboobay sanad kaliya uu ka haray wax badan laga faa'iiday xildhibaanada majority ahaan loogu faa'iiday dhaqaale badan lagu bixiyay in marka ummadda Soomaaliyeed lagu jahwareerinayo tirikoob aan jirin iyo aqlabiyad kale si loo helo meelaha loogu xogxoganayo arinta ayada ah qurba joogtiina sida u aragtay waxaweeyda qurba joog iyo guda joog cidii doontaada waa afkaaro siyaasi ah oo laga bixinayo ra'yi laga bixinayo waxa weeyaan waxa ugu muhiimsan ee meeshan yaala ee laga galgalanaya xasan sheekhna uu rabaa Somaliland cimri dherer u ah oo iyaduna ay rabtaa waxa weeyaan doorashada 2016 inaanay dhicin oo sida adduunyada iyo bulshada caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed kale ay wadaan in aanay arintaasi u hirgelin maadaama pressure lagu soo saaray in maamul goboleedadii la dhiso lagana yaabo in wuxuu laga qabto lagu guuleysto khilaafkan wuxuu hormuud ka yahay arintan waxay hormuud ka tahay khilaaf cusub oo dadka lagu kala bahalkeenayo oo berri ay rabaan xasan sheekh iyo gruubkiisu inay marmarsiiyo u helaan maxaan 2016 ka doorashadii sii qabana tira koobtii aanu samaynay iyo censuskii la sameeyay sawtan ummadii Soomaaliyeed ay diidan tahay inay marmarsiiyo ka dhigtaan dabadeedna si ay arintu doorashadu waqtiga ay u hirgeli weydo oo kordhinaya wixii kale ay maagan yihiin ay taladu isugu bedesho laakiin waxa soo dhan waa la isla wada fahmayaa runtiina anigu waxaan jeclaan lahaa oo aan tala iyo warba aan u jeclaan lahaa waa madaxweynaha Soomaaliyeed xasan sheekh waa laga wacan yahay inuu maalinba uu soo saaro madaxa oo arin yacni Soomaalida aan qofnimo ahaantiisana ku wacnayn qarannimada Soomaaliyeedna aan u wacnayn oo maalinba keeno dadkan Soomaaliyeed way wada fahmeen dhibaatadii ka dhacay isuma gaban karaan la isma khaldi karo qofna qof wixiisa ma qaadan karo marka waxa weeye war maalinba meel fooda ha soo saarin oo maalinba nooc haysu kaysiin madaxweynenimo Soomaaliyeed iyo qarannimo Soomaaliyeed soo noqo waxaanina wax shaqaynaya maaha وحمد الصومالية لقوا كل دليل ويا أطبعاً وهم بليانا يا رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد يجروب هذا الصومالية حلبان واحد شيكتي إن مدحوين حسن الشيخ وبيشي سي ولا بجفدي سهاسي وقيمة ركابكي لو ملين إيه 3 بقول أو كن أو غفور
haddaba beelweynta hawiye markaan guud ahaan imisa ayay yeelan kartaa ama uu ugu talagalay maadaama ayagu ay u badan yihiin gobollada dhexe galgaduud meesha la yidhaahdo ilaa beledweyne ummadda intaa la eg imisa ayuu tirkoobkiisa ogaanta uu ku qiimeeyey madaxweyne xasan sheekh mas-uuliyadda tirakoobkan la soo saaray isagaa leh haddii aanu ogeyna cidima soo saarteen isagaa meeshaa ka agtara runtii marka beesha aad magaca ku dhufatay hawiye laga soo qaado waxay ka mid noqonayaan dadka dulman gobollada hiiraan iyo meesha la yidhaahdo galguduud waa gobollo ummad badan oo soomaaliyeed degto gaar ahaan gobolka galguduud waa gobollo dadku ay yacni waxa weeye gobollo xoololey ah oo dhulka xoolaha ugu badanba laga keeno reer guuraa badani degan yahay waa gobollo beera ku taxalluqa oo webiye leh waa gobollo yacni loo odhan karo waa meelaha soomaaliya dee dadku ku dhaqan yahay meelo ka mid a markii horena nambarka qiyaastu waxaan filayaa inaanayba dee nambar ay ku qanci karaan aanu ahayn haddana dee marka xasan wax kala sii hadhay waxa u soo hadhay bal iyagaa la weydiin doona ma garan karo laakiin dadka dulmada soomaaliyeed bay ku jiraan mudane cabdirasaaq waxaad sheegtay muqdisho ilaa iyo waqooyiga gobollada dhexe bal haddaynu soo aadna dhanka iyo koonfurta labada maamul ee ka jira jubbaland iyo gobollada baay ee koonfurta bal maxaa ayagana qiyaastaa ay ku sheegtay runtii hore waataynu dee wax ka nidhnidhi ilaa waqooyi galbeed iyo markaynu qiimaynta ku sameynaynay gobollada sool iyo sanaag burciyo waqooyi galbeed dhinacan bari hadda waxaa weeyaan koonfur gobollada jubbooyinka iyo gobollada koonfur galbeed labaduba waa degaano balballaadhan oo lagu dhaqan yahay laakiin qiimo darrada ka muuqata sansaska ama sansas ku-sheega hadda ay wasaaradda qorshayntii xasan sheekh ay soo gudbiyeen waxaa mucjiso ah gobolka jubbada hoose iyo gobolka jubbada dhexe ee bu'aale iyo gobolka gedo saddexdaa gobol ee maamul goboleedka jubbaland ayaa waxaa lagala qiimo dhigay ama lagala dad dhigay oo la yidhi waa same population marka ama shabeellada hoose saddexdaa gobol waa milyan iyo 300 tiro ah baa lagu qiimeeyey dadkiisu inuu tiradiisu ay tahay markana milyan iyo 200 ama shabeellada hoose ayaa lagu qiimeeyey marka inaan caqli ka shaqayn waxaan fayow oo yacni ummadda soomaaliyeed yacni ay maanta diilo u noqon kara ee ay tahay wax uun si kale looga shaqeeyo barnaamij wax kale laga rabay ay ahayd iyo taariikh cusub in dadka loogu yeelo way ka muuqanaysaa yacni dee saddexda gobol ee areada leh deegaanka leh beeraha iyo xoolaha iyo wax iyo in la yiraahdo shabeellada hoose ama markaa isku dada waa mucjiso wax lala yaabo ma ogtahay marka intaasaan taa kaga jawaabi lahaa intaasaad qiyaas ka dhigan kartaa ugu dambeyn adigoo bulshada soomaaliyeed bal fikirkaaga u jeedana maxaad kula talin lahayd maamulka Siinay mar haddii ficilka aad ku tabaysid iyo inay ka wada shaqeeyeen dawladda dhexe ee muqdisho ee damajadiid bal ummadda Soomaaliyeed maxaa halkan ugu sheegay ummadda Soomaaliyeed mas'uuliyadda waxay u dhiibatay xasan sheekh waxa weeyaan inuu marba meel kula galgasho oo marna hargeysa looga soo taliyo marba meel looga soo taliyo marba meel fariin looga soo dhiibataana uu ummadda Soomaaliyeed khilaaf horla iyo waxaan shaqaynaynu ku soo dhaxgeliya waa mas'uuliyad darradiisa waxaan